daawadayaal qaybta saddexaad wararkii u calaa dhinaca diblomaasiyadda horfadhimi waa 15 Abriil waa 2020 waa Arbaca waa mar kale iyo warar iyo xogo waaweyn oo dhinaca diblomaasiyadda aan ku dhex jabaxayno daawadayaal aan ku bilaabayso markaan aan uga horeysiyay qaybtane dalka isku tagay Imaaraadka Carabta shirkadiisa duulimaadyada Dubai ilaahdo Emirates ayaa magaalada Dubai ka soo saartay warbixin ay ku sheegayso inay dib u bilaabi doonto duulimaadkii iyo mushaaxi caalamka ay u kala mushaaxi doontay marka la gaado kowda bisha May bishan dambe war qoraal oo soo saaray madaxa guud ee shirkadda isla markaana lagu daawacay warbaahinta dalkaasi ayaa lagu sheegay in ay u muuqato in laga soo baxayo talaabooyinkii xayiraadda dhinaca socdaalka ee adduunka sida daraadeedna waxay sheegeen haatan inay dib u fureen in dadku ay iibsan karayaan balidi dhammaan tikidhada ay u baahan yihiin ay doonayaan inay ku gaadhaan meesha ay doonayaan adduunka gaar ahaan waxay yiraahdeen meelaha cayiman inkastoo waxdu ay sheegtay in bishii Maarso 23keedii ilaa iyo haatan ay aad ay u ahayd gaabis isku socodka diyaaradaha isla markaana lama noocay inta badan diyaaradaha caalamiga ee ka soo degaya dalka isku tag Imaaraadka Carabta ayaa haatan waxay sheegtay isku tag diyaaradaasi Emirates in ay bilaabi doonto qorshe dib u duulis arintaas waxaynu bilaabi doonaa qorshe dhinaca duulimaadyada caadiga ah isla markaana qaarkood waxay noqon doonaan kuwo aynu ku bixino adeegyo heer sare ah oo aan doonayno inaan dadka mar kale gaarsiino goobaha ay rabaan waxay tan ka mid tahay talaabooyinka aan doonayno inaynu isugu soo dhaweeyno caalamka gaar ahaan dhinaca isku socdaalka iyo mushaaxa hawada ayaa lagu warka qoraalka arintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wali si taltaala oo taxadar leh ay ku furmayaan dhinaca isku socodka caalamka qaar kamid ah dalalka iyadoo dalalka qaarkoodna wali ay wadnaha farta uga hayeen in arintu darsa karayso hagaag daawadayaal madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna wuxuu ku dhawaaqay inuu hakiyay lacagtii la sii jiray hay'adda caafimaadka the World Health Organization the WHO loo soo gaabiyay Mr. Trump oo ka hadlayay afafka aqalka cad ee White House dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in WHO ay khiyaamaysay Mareykanka iyo dunida sidaa daraadeedna wuxuu sheegay inay si xun u maamuleen xanuunka faafaya ayna la jirsadeen wuxuu ku sifeeyay dal markaasi sir ah oo gabigiisu dhan wada qafilan oo ah dalka Shiinaha oo ku sifeeyay inuu dunida xanuunka uu u qariyay ayaguna ay ka ciyaareen door aad u weyn inay xanuunkaasi sakhraan wuxuu tusaale u soo qaatay in WHO aysan taageerin mabaadi'da dhinaca in la joojiyo isku socodka goor hore isagoo ku sifeeyay in isku socodka adduunka iyo in xayiraad la saaro diyaaradaha isku kala gooshaya ay ahaayeen talaabooyinkii ugu waaweynaa ee laga hortagi karayay xanuunka laakiin WHO ay iska dhaga marisay Mareykanku wuxuu ka mid yahay dalalka ugu badan ee dhaqaalaha siiya WHO 400 ilaa iyo 500 oo milyan ayuu sanadkii Mareykanku uu siiya dal hay'adda caafimaadka adduunka WHO Shiinaha ayaa ah dalka marka dalalka ugu yar ee lacag siiya hay'adda caafimaadka adduunka WHO kaasoo 40 milyan kaliya sanadkii bixiya WHO waxa ay qabatay shaqo aad iyo aad u xun ayuu marka ay timaado in ay arintan noo sheegto Shiinaha waxa uu ahaa wadan aan isku dheelitirnayn dhinaca wareynta iyo siinta xogo ku saabsan xanuunkan khatarta uu ku yeelan karo dunida iyo raadka iyo dharbaaxooyinka la dhacayo adduunka haraatida hadeerto aanu ka kici kari laanahay waxa weeye tan dhaqaale tan isku socod iyo tan nafaha aan dhuminay dad badan ayaan badbaadi kari lahayn hadii uu goor hore qayl lahayd senatarka laga soo doorto gobolka Connecticut ee dalka Mareykanka kamid ah senatarada ugu codka dheer uguna markaas ruuc cadaysan siyaasadda Mareykanka senator Chris Murphy ayaa waxa uu ku duqeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka hadal ku saabsan hadalladaas wuxuuna ka tirsan yahay golaha aqalka Senate-ka ee loo yaqaan golaha markaas xiriirka dibadda ee aqalka Senate-ka u qaabilsan wuxuuna sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu u muuqdo mid ka muquuranaya mas'uuliyadda isagu lahaa isla markaana doonaya in uu kaga siibto ayuu yiri dad kale ayuu yiri mas'uuliyadii iyo khaladaadkii ay ka soobiyeen maamulista iyo arintan markay noqoto ayuu yiri tacaalistooda hadda xaalkan ma oran karo ayuu yiri WHO wax khalad ma lahayn Shiinana khalad weyn ma sameyn ma oran karo laakiin waxaan leeyahay ayuu yiri ma aad adeegsan adigu saynis yahanada sirdoonka أنا ما دقيسن dadka cilmiga u leh arintan akhyaartaana ma dhageysan ayuu hadeertana waxa uu muuqata inuu jiro ayuu dadaal isku xidh ah oo ka socda aqalka hoose oo adiga iyo taageerayaashaadu aad ku doonaysaan ayuu inaad kaga siibataan masiibadan dhimashada faraha badan dadka Mareykanka kaga tagtay ee aad ka hortagi karteen goor hore ayuu Mr. Murphy waxa uu intaas ku daray in hadeerta loo baahan yahay in madaxweynaha Mareykanka uu dhageysto dhaqaatiirta iyo culimada dhinaca science-ka ee cilmiga caafimaadka ku takhasusay balse uusan noqonin ayuu yiri mid isagu iska dhaga mara waxa uu dhanka kale ku eedeeyay in uu lagu ogaa isaga oo noqda isaga ahaa ayuu yiri wasiirka dhinaca raaligelinta arrimaha Shiinaha oo macnaha Shiinaha ayuu u qaabilsanaa jiray buleeyay inuu raaligeliyo isagoo markaa ula jeeda 24 bishii January ayaa madaxweynaha Mareykanka hadal aad iyo aad u culus laga hayaa taasoo hadeerto in badan
dadka ka mucaaradka ahi ay u adeegsanayaan. waagaa wuxuu yidhi shiinuhu waxa uu u shaqeynayaa si aad u adag si uu uga hortago xanuunkan, waxayna u muuqataa in ay Mareykanku ay ku faraxsan yihiin ogana mahad celinayaan dadaaladooda ku aadan sida isku dheeli tiran ay xanuunka uga waramayaan iyo shaqada ay dhigayaan, taasoo ah shaqo aad iyo aad u wanaagsan. gaar ahaan anoo ku hadlaya magaca dadka Mareykanka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne Xi ayuu qoray oo bartiisa Twitterka ku qoray. taas ayaana waxay ku noqotay madaxweynaha arrin kale oo laf dhuun gashay noqotay. dhammaanna haddeerta adduunka waxay isku raacsan yihiin shiinuhu inuu xanuunkaasi adduunka u qariyay, ayadoo hay'adda WHO-na ay haatan iyaduna ay la daala dhacaso eeda badan oo ku saabsan inaysan arrintaasi wacan u maamulin. Iiraanna waxa ay u dabaaldegtay isla markaana xustay boqolkii maalmood guuradii kasoo wareegtay dilkii taliyahoodii ay ku seexan jireen ninkii loola jiray Qaasim Suleymani ee asagu taageerada weyn ka haystay kooxaha Shiicada ee ka dagaalama Carabta gudaheeda iyo kuwa kale waliba Sunniyiina. waxaana ay soo dhigeen muuqaal fiideo ah oo muujinaya asaga oo dagaalka Suuriya ka maamulaya qol yar oo ku yaala gudaha dalka Suuriya, kaasoo uu la fadhiyo taliyihii sare ee dhinaca arrimaha dagaalka ee Xisbullah u qaabilsanaa dalka Suuriya oo arrintu ay noqotay la yaab. muuqaalkan ayaa wuxuu muujinayaa in Qaasim Suleymani oo la fadhiya taliyaha sare ee isagana la dilay oo ay dileen kooxaha Sunniyiinta ah ee dileen ka dagaalama dalka Suuriya, isagana ay dileen oo loola jiray Badruddin. waxa ay u muuqdo Mustafa Badruddin baa loola jiray ninkaasa oo ninka Xisbullah u qaabilsanaa dagaalka Suuriya. waxa ka muuqda inuu telefoon ku hadlayo, daawanayo istaraatiijiyad dagaal, sidoo kale u daal aad u badan ka muuqdo, taasoo muuqaalku ka turjumayo sida uu u shaqeey jiray in aysan ahayn inay ahayd si qeyr caadi ah, iyadoo in badan lagu tilmaami jiray inuu ahaa nin aad u karti badan. ninkan ayaa waxa uu markaasi dhageysanayaa telefoonno ay soo dirayaan kooxaha furinta line ka dagaalamaya ee dagaalka ku jira iyo sidoo kale goobaha ay burburiyeen iyo talaabooyinka ay qaadeen. dadka qaarkood ayaa u imaanaya oo markaasi dhunkanaya ayagoo saraakiisha qaarkood u arkaa in uu yahay nin ka mid ah halyeeyadii ay waayeen. Iiraan waxa ay weli ku tooqaysaa dhankeeda in uu argudasho loo sameeyo ninkaasi aysan ahayn mid fare ka qodan tahay ilaa deerto oo ay ka digayaan in ay sii wadi doonaan argudashada ku saabsan dilkii ninkaasi loo geystay. haddana Liibiya, dalka Liibiya dunida dadaal baa ka socda saad ogtihiin ku saabsan ka hortagga xanuunkan. Liibiyana dagaal baa ka socda, sidaa daraadeedna ciidamada dalka Liibiya JNA oo ayaga indhoweytaba xaaladoodu ay ahayd mid markaasi aad u liidata oo jar kasii laadlaaday ayaa haatan u muuqda in ay soo laba kacleynayaan. waxayna u muuqdaan in ay bilowdeen maalmihii xumaa ee Jarmanka awoodda badan yeeshay, dhulka ugu badan qabsaday, haatan se u muuqdeen awoodiisi la kala jabiyay. ciidamada loo yaqaan the Government of National Accord JNA ayaa waxa ay burburiyeen saldhiggii military ee ugu weynaa ee Khalifa Haftar oo lahaa sida uu sheegay afayeenka militariga kooxda JNA Maxamed Qonoqono oo la hadlayay warbaahinta. wuxuuna sheegay in saldhigga military ee Al-Watiya la yiraahdo ee galbeedka dalka Liibiya cagta la mariyay isla markaana lagu burburiyay hubkii ugu badnaa iyo saanadii diyaaradahan ciidawadin ee dalka Turkiga ayaa dagaalka si buuxa u galay iyadoo ay u muuqato in tiknoolajiyada shirkadda Aselsan ay soo bisay dalkaasi Turkiga haatan lagu tijaabiyay dalka Suuriya. haatanna dalkii labaad ee lagu burburinayo ay yihiin saldhigyada kooxda Haftar sida uu sheegayaan dadka markaasi arrimaha militariga ku takhasusay. Al-Watiya waxa uu ahaa saldhig ilaa 2014 ay taageerayaasha Haftar ay maamulayeen, wuxuuna ahaa meesha ugu badan ee hubka ay uga soo dejiyaan dalalka waxa la yidhi Russia iyo dalka isku tagay Maarabka Carabta dalka Liibiya. waxaa haatan la sheegay in ay ahayd qaybta militariga maamulkiisa ee galbeedka oo dhan isla markaana duulamada isku xiran laga maamulo, lagana sabaray gareeyo ama laga markaasi saanad siiyo oo saanada halkaasi looga kala diro sida ay sheegayaan. waxa ay wararku sheegayaan in sidoo kale halkaasi lagu burburiyay diyaarado yaalay oo ahaa nooca Su-22 la yiraahdo oo dalka Russia ay ku hubeeyeen baa la yiri Haftar oo u wadeen dad calooshood shaqaystayaal ah kuwaas oo la sheegay in hub aad u culus ay ku rakibnaayeen. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in wararkan ay muujinayaan sida dawladda JNA haatan ay u xaqiijisay waxa la dhul gaaraya 3,000 oo isku weegaar ah oo kilomitir 3,000 oo kilomitir isku weegaar ah ayay qabsatay muddo ka yar hadeerto 4 casho dawladda JNA, taasoo ka dhigan ayaa la guushi ugu ballaarneed ee abid ay gaareen. salaadii subax ayaa la sheegay ayaa la arkay iyagoo ku damaashaadaya saldhigga ay burburiyeen agagaarkiisa kooxda JNA oo marka diyaaradaha droneska ee aan ciidawadin ee dalka Turkiga ay halkaasi cududooda military duldhigeen ayaguna ay ku soo saqeen xagga dhulka. Haftar ayaa la sheegay haatan inuu gacan ku gabad yahay kadib markii dhawaana laga bursaday deegaanada ay ka mid tahay Sabrata iyo Surman, kuwaas oo la arkay iyadoo la eriyanayo baabuurtiisana marba qaar ay diyaarad aan ciidawadin oo sida shimbir miliga dulhay haabasa ay burburinayso. haatan wararku waxay sheegayaan in dawladda
dalkaas Liibiya ay doonayso inay Xaftar ka taqalusto ilaa iyo inta uu soo wado talaabooyinka adag ayaa la sheegaya halka nagala socdaan wixii wara dabcan waa ogaad doona arinta dalkaas Liibiya iyo cidda ku tabtirroonata ayadoo haatan ay u muuqato inay ka rago laba saar noqotay sheekadu maalmihii ugu dambeeyana dawladda China aad ogeeyeen in xaaladeedu liidatay hadeer sase ay u muuqato inay Turkigu uu cara kula dhacay waan ogaad doona wixii ka soo naasacadaada iyo warbixinaha hadii Ilaahay nafteena daayo daawadayaashana qiimaha leh ee dalka Hindiyana wasiirkiisa gobolka Kerala ayaa warqad uu diray oo u diray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi warbaahintu halabsatay ayadoo inta badan warqadan ay ku qornaayeen erayo carale oo ka dhan dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa wasiirka xukuumadda gobolkaasi chief minister ka yiraahdo waxa uu sheegay in kumanaan kun oo ka tirsan gobolka Kerala dadka ka soo jeeda ee xoogsatada ee ku dhaqan dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ay la soo diristay wuxuu ku sheegay in laga dhaqaaqay oo daryeel xumo ay ku haysato halkaasi dadka iyagu waxayna qabtaan shaqooyinka gacmaha laga qabto xoogsiga ma aha ayuu yiri dad dhamaantood wada ah dad markaasi professionals ama dad marka macnaha khibrad shaqo leh oo shaqooyinka shahaadada loo haysta ayuu yiri waa dhamaantood waa dad xoogsata waxaana ognahay in la geeyay warshadaha wax soo saarka ee dalkaasi lagu laan shaqeysto kadibna ay xanuunka isku wada neefsadeen ayuu yiri wasiirka oo si carale ula hadlay ra'iisul wasaaraha maadaama asaga gaar loo soo doorto uusan ra'iisul wasaaruhu magacaabin oo yahay nin gobolkaas loo doorto wasiirka gobolka loo doorto wuxuuna yiri waxaan ka dalbanaynaa inaad reer Kareele noo soo celiso kumanaan kun oo qof ayaan u baahanahay inaad nooga soo celiso halkaasi isagoo yiri waxaanu u aragnaa in dalka isku tagay Imaaraadka Carabtu ay suxna ula dhaqmayaan dalka Carabta haday yihiin dalka la yiraahdo Qatar iyo dalka isku tagay Imaaraadka Carabta Sacuudiga ayaa aad loogu eedeeyaa in ay dadka si ilaan jixinjaxa oo la dhaqmaan dawladooda dalka Qatar ayaa dhowr shir lagu helay dambiyo waaweyn oo ku saabsan in dadka shaqaalaha ee danyarta ee ka shaqeynaya goobaha ay doonayaan inay u dhisaan koobka adduunka in lagu ciyaaro inay ku shaqeysanayaan bahdilayaan inaysan siinaynin dadka qaarkood waxyaalihii ay u baahnaayeen iyo sidoo kale xataa in ay goobaha ay dadkaasi ku nagi yihiin aysan hayn goobo nadaafad iyo waliba leh adeegyada loo baahan yahay asaasiga halka nagala socotaan wararkii wali far kama qodna daawadayaal qodobo dheeraad ah inoo soo socda iyo warbixino kala duwan ee haatanna Saudi Arabia ayaa iyaduna waxay ku dhawaaqday gordhaweyto in wada hadaladii kafoolka ahaa ee kooxda Xuutiyiinta ay la lahaayeen ayadoo ka wakiila dawladda taagta daran ee baxsadka ah ay haatan dib u furmeen sidaas waxaa sheegaysa warbaahinta dalka Saudi Arabia sidoo kalena ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen ayaa dhankiisa waxa uu sheegaya in ay taasi iyaduna ay u muuqato yidiilo kor loogu sii qaadayo xabad joojintii dhawaan la gaaray ayuu yiri Sacuudigu waxay sheegeen in dawladda taagta daran ee dalkaasi iyagu ducducaan ay haatan ogolaysiiyeen in wada hadalada dib loo furo kuwaasoo markii ay ku qabsoomeen sanadkii 2018 magaalada Stockholm u muuqday kuwo markaasi aan waxba ka soo naasacadaanin oo halkii aan laga sii wadin gaar ahaan talaabooyinka ee hadin la qaado ee ka mid ka ahayd in maxaabiista labada dhinac oo dhan la isdhaafsado xabadda in si rasmi ah loo joojiyo iyo in la galo wada hadallo sahli karaya in awoodda la qaybsado gabi ahaanba waxa kuma soo naasacadaanin halkiina kama sii socon haatan waxaa la sheegayaa in Sacuudiga laftiisa uu ku daalay dagaalka halkaasi iyo kooxda Xuutiyiinta oo iyaguna aan dhul hor la qabsanin marka laga reebo in dhul ay marba laga farmaroojiyo dib u soo ceshadaan ay labadu haatan ay sanka kaga tolan yihiin inay wada hadlaan qodobka ugu dambeeyana daawadayaashana qiimaha leh ee ku saabsan wararka dhinaca diblomaasiyadda xanuunka coronavirus-ka ama faafaha daran ayaa waxaa la sheegay inuu noqon doono ka go'aamiye mustaqbalka dalal badan hogaamiyashooda gaar ahaan waa dalalka shacabku wax doortaan ee odrasi kara sida madaxweynahooda arinta u maamulay waxaana la sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagu taageerada ugu badan haystay in dhaweetaba xataa arintii xilka qaadistu aysan wax weyn yeelin waxaa la sheegay in xanuunka coronavirus uu noqon karo kii madaxweynaha salfalaha waxaa la yiri kani waa kii xilkiisa melgili ahaa madaxweynaha baa lagu yiri warbixin dhinaca xeeldheerayaasha siyaasadda ee odaraska ka tirsan markaasi maxadka daraasaadka cilmi baarista Washington ay soo saareen waxayna sheegeen in ay tan noqon doonto cidda xanuunkan noqon doono cidda go'aamisa ayaa la yiri arintaas goorsii horeysay ayaa dhakhtarka dhinaca xanuunada faafa dalka Mareykanka ee ugu sareeya maxadka caafimaadka heer qaran ee dalka Mareykanka Dr. Anthony Fauci waxa uu arin u eg uu yiri mar la weydiiyay cidda go'aamid doonta xilliga Mareykanka dib loo fasaxayo inay noqon doonto madaxweynaha Mareykanka iyo inay noqon doonto gudoomiyaasha maamul goboleedyada oo isku haysta ayuu yiri coronavirus-ka ayuu noqon doonaa cidda arinta go'aankeeda leh taasoo markaasi ah
taasna mid ilaahay ku sii xiran oo dabcan ilaahay ku sii xiran wuxuu ula jeeday xanuunkan hadduu yaraadana dadka wala fasaxaya hadduu sii batana way sii xayiraanayaan taasoo ah xigmad markaas iska caadi oo guud oo common sense haatanse ururkan wuxuu leeyahay madaxweynaha Mareykanka in uu sii noqdo qof la jecel yahay oo dhinaca marka la eego dadku aragtida ay ka dhimanayaan wuxuu noqon doonaa ay yiraahdeen mid ku xiran sida uu u maamulo xanuunkan oo haatan dhaleeceynihii ugu badnaa oo la kulmayo madaxweynuhu dad badan ayaa madaxweynaha ku dhaleeceynaya sida uu arrintan u maamulayo gebi ahaan bay inay tahay si guracan oo aan ahayn habkii loogu talagalay marmarka qaarkoodna uu iska dhiga marayo talooyinka saynis yahanada iyo dhakhaatiirta cilmiga u leh arrimahaas intaan ku joojiyo amaan Allah